أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم walaalayaal waa casharkeenii toddobaad ee chemistryga af Soomaaliga ahaa waa casharadeenii taxanayaasha ahaa aanu kasoo jeedin jirnay Iqra Education Program walaalayaal casharadeenii intii hore waxay iska ahaayeen basics weli waxa weeyaan basicskii baan ku jirnaa uma aynan gudbin waxa la yiraahdo casharadii caadiga ahaa walaalaha qaarkood waxay naga soo codsadeen inaan usoo sameyno summary insha Allah summary waxaan sameyn doonaa marka casharada aan caadiga soo jeedino ilaa casharka 15 ilaa 16 baan bilaabi doonaa waa aniga Maxamed Cabdirashiid Muuse oo kasoo jeedinaya Iqra Education Program Chemistry of Somalia walaalayaal sidii hore ay u soo sharaxnay waxaan ka soo hadalnay waxa la yiraahdo matter waxay tahay qaybaha matter u kala baxo structure-dooda iyo properties-kooda at the same time haddana waxaan ka hadalnay waxa la yiraahdo boiling point-gooda iyo melting point-gooda then waxaan kaloo ka hadalnay waxa la yiraahdo maadaama hore aan ku sheegnay waxa la yiraahdo environment-gaan ama dhulkaan aan ku noolnahay markaan u eegno waxaan ka hadlaynay oo ahaa chemistry-ga wuxuu ka kooban yahay matter iyo waxa la yiraahdo energy matter waa si qoto dheer baan wax hadalnay walow energy aanu soo koobnay maadaama mostly energy waxa la yiraahdo uu ku badan yahay physics-ka xogaa marka waa iska soo yar koobnay inta haddaan uga gudbo waxaan ka hadli doonaa waxa la yiraahdo atom waa maxay atom muxuu yahay wuxuu ka kooban yahay walaalayaal as English markaan waxa la yiraahdo u define gareyno waxa weeyaan waa smallest particle in the matter so matterku wuxuu ka kooban yahay atomo isu tagay matterku wuxuu ka kooban yahay atomo isu tagay okay atomka laftirkiisa rabnaa inaan si gaar uga hadalno in English haddaan explanation ku sameyno waxa weeyaan everything in universe all the matter is made up the teeny little things called atoms. Okay, so the smallest particle of the matter that ever exists waxa ugu yar ee jira tusaale haddaan soo qaadano wax walba oo matter wuxuu ka kooban yahay atoms tintaada in yar oo tintaada chap tintaada kamid ah waxa laga yaabaa ka kooban tahay 1 milyan oo atom so 1 milyan oo atom markay chap yar oo tintaada ka kooban tahay macquul ma tahay inaa atomkaasi jajabisid oo aad ka dhigtid small particles atomka liftigiisa no wax macquul ma it's not possible okay haddaan hore u soo socono atom waa maxay atom aan idin Soomaaliyeeyo sidaan ka soo xigtay fasalka koowaad ee chemistry-ga ee manhajkii dawladii jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu oranayaa saxarka ugu yar ee matterka ku jira waxa lagu magacaabaa atom saxarka ugu yar ee ku jira matterka waxa lagu magacaabaa atom so atomka lama sii kala jebin karo atomku lama kala jebin karo laakiin atomo isu tagay laba qaybood oo loo kala jebin karaa tusaale haddaan soo qaato waxa la yiraahdo mercury oxide waxa loo kala jebin karaa sababtoo waa atoms isu tagay waxa loo kala jebin karaa mercury iyo oxygen markii mercury iyo oxygen loo kala jebiyo atomiska laba qaybood marka u kala jabayaan laakiin taasi lama oran karo atomadii waa la jabshay waxa weeye group atoma ayaa dhinac loo saaray group atomana dhinac baa loo saaray so marka taas waxa la yiraahdaa ururo atom ayaa la jabshay ururada atomkan waxa lagu magacaabaa molecule so marka waxaan rabnaa atom iyo molecule inaan idin kala qeexo si aad si qoto dheer ugu fahantaan atomku saan hore idinku sheegno waxa weeyaan waxa weeyaan waa saxarka ugu yar ee ka kooban yahay matterka atomku ma qaybsami karo lama jajabin karo atomku wuxuu ka qayb qaadan karaa isbedel kiimikaad ayuu atomka qaadan karaa waayo group atoma iyo group atoma markay isu tagaan
waxay soo saari karaan sida hore kugu sheegnay mercuric oxide oo laba molecule oo isu tagay ah. Okay, molecule waa maxay? Molecule-ku waa ururo labo atom iyo wixii ka badan ka kooban. More than two atoms or more than. So that means more than one atom. Wixii hal atom ka badan, laba atom, saddex atom, afar atom, shan atom, however ay isu tagaan waxay soo saarayaan molecule. Okay. maxaa marka xiga ay u baahanahay? Atomku muxuu ka kooban yahay? Muxuu ka samaysan yahay? Atomka dhexdiisa maxaa ku jira? Taasaa muhiim in aan ogaano. What is in the atom? Atomka maxaa ku dhex jira? Inaan ogaano. Okay. halkan atomku wuxuu ka kooban yahay saddex walxood: protons, neutrons and electrons. Okay, halkan saa uga jeedid electrons waa kuwa ku wareegsan, waa ka buluuga iyo kan buluuga iyo kan buluuga iyo kan buluuga. Okay, protons kana waa kuwan calaamada positive ka wata, electron negative wata, neutron kana waa kuwa enter. Okay, qeexid idin ka siino three parties uu ka kooban yahay atomka. So protonku waa maxay? Protonku waa very dense, waa culus yahay, wuxuuna leeyahay positive charge. Okay, calaamad positive uu ku charge garaysan yahay. Neutron kana also very dense, asaga laftirkiisa waa culus yahay laakiin wax charge ma leh. Marka protonka iyo neutronkan almost waa similar, laakiin waxay ku kala duwan yihiin. Midna charge buu wataa, midna charge ma wato. Electronka hadda u nimaano much smaller, asagu ka yar yahay, uu ka khafiifsan yahay, laakiin waa negative charge, calaamad minus wata. Kan halka uu ka wato calaamad positive. Always waxa la yiraahdaa protonku wuxuu soo jiitaa positive kaasi negative oo electronka negative kana wuxuu soo jiitaa positive, laakiin neutron wuxuu dhexahaabaa labadooda dhexdooda. casharka yaga caawo ku saabsanaa atom intaas ku kooban yahay. Insha Allah waa qaybta koobaad ee atom aan kaga hadlaynay. insha Allah waxaan filayaa qaybaha dambana inaad la socon doontaan haddii Ilaahay yiraahdo. waxa la yiraahdo waxaan kaloo insha Allah samayn doonaa inaanu kaga faa'iideysano barnaamijyadeena biology, casharadii kale oo computerka ahaa ayaga laftirkooda insha Allah ta'ala dhawaan dib ay u bilaaban doonaan. waa mahadsantihiin la socoshadiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.